السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان dadka Soomaalida ah ee dunida dacaladeeda ku nool waxaan idin salaamayaa salaanta qaaliga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaa haddana fariin gaar ah aan u dirayaa dadka ama Soomaalida ku nool qurbaha qaasatan Mareykanka qaas ahaanna state-ka Minnesota waxaan ka hadlayaa sanadka waqtigan waxaa lagu jiraa waqtiga doorashooyinka la yiraahdo midtermka wadanka Mareykanka doorashooyin waaweyn baa waxay dhacaan 4 sanaba mar inta u dhaxaysana waxaa dhacda mid la dhaho midterm election waa mid hadda aan ku jirno waxaa jirta marka laba qayb mid midtermka iyo mid general election hadda waxaan ku jirnaa mid midtermka oo ah waqtiga dhexe oo ah waqtiga sanadka ay badanaa tartamayaan ama congressionalka ay tartamayaan midna waxaa la yiraahdaa general election oo waxaa tartama madaxweynaha waqtigiisa weeyaan hadda marka waxaan ku jirnaa sanadkii 2014 doorashadan oo ah doorasho taariikhi ah ay isku hayaan maxaan ku dhahaa siyaasiyiin kala duwan una tartamaya xafiisyo kala duwan oo isugu jira kuwa local ah iyo kuwa national gabi ahaan markaan aan leeyahay fariintan waxay ku socotaa gaar ahaan Minnesota gabi ahaanna Mareykan dhan waxaa ka jira midterm election waqtigan isteedyo badan oo Soomaalidu degan tahay marka waxaa laga yaabaa saameyn weyn inuu ku yeesho sanadkan doorashooyinkiisa waayo xafiisyada senatarada qaar ka mid ah miiska saaran congressionalka dhanna intooda badan way saaran yihiin gabi ahaan wadanka Mareykanka khaasatan Minnesota markaan u soo noqdo waxaa miiska saaran sanadkan xafiiska sanadka xafiis ka mid ah waxaanu leenahay state kasta wuxuu leeyahay laba senator state Minnesota sanadkiisa laba weeyaan waa senator Al Franken iyo senator Amy Klobuchar 2012 doorashadii labaad ku guuleysatay haddana doorasho uma taagnaa hadda waxaa doorasho u taagan oo miiska saaran senator Al Franken oo xisbiga dimuqraadiga uga tartamaya iyo oo haddana sanad ah oo mar labaad rab u sharaxan iyo nin ka tartamaya xisbiga Republicanka ah oo asagana la tartamaya isla jagadaas inuu ku qabsado ninkaas oo yiraahdo anaa kaga guuleysanaya hadba qof ku guuleysan lahaa waa nasiibkooda iyo labada qof oo tartamaya taas waxaan ugu sheegayaa waxa kale oo miiska saaran governorka state-ka waad ogtihiin sanadkan 2010 waxaan dooranay governor oo markii hore governorka ka hor waxaa governorka ahaa state-ka governor Republican oo la oran jiray Tim Pawlenty wuxuu Tim Pawlenty go'aansaday inuu san tartamin mar kale waxa uu soo istaagay tartankaas dad badan oo kala duwan xisbiga dimuqraadiga ay qof keensadeen ama dad badan oo kala duwan primary-gana ay soo saareen generalkina waxa uu soo haray Dayton wuxuuna ku guuleystay doorashadaas 2010 inuu noqdo governorkii state-ka Minnesota saan wada ognahay governornimadu waa 4 sano 4 sano ay u dhamaatay haddana wuxuu u tartamayaa re-election waxaa la tartamay sidoo kale asna nin Republican ka tartamaya oo rabaasna kursiga inuu kula tartamo governorka oo mar labaad u sharaxan iyo ninkan oo mar cusub raadinaya inuu booska helo oo ku bidgareeyo soo asagana governor u noqdo doorashada shacabka iskale qofkay dooranayaan ayaga u dhaafaya laakiin maanta waxaan u imid halkan kaliya inaan baraarujiyo muhiimadda ay noogu jirto doorashada iyo awoodda ay leedahay codeynta waxaan filayaa in badan oo dadka ka mid ah khaasatan reer Minnesota ama Mareykanka in sanad kasto sanad doorashooyin ah aad iga daawataan meelo badan oo adduunka kala duwan dacaladiisa anoo inta badan idinku tabinaya sidoo kale waqtiga doorashada hadba ay jirto waxa la filayo oo dhici doona iyo sida loo codeyn karo marka caawa waxaan rabaa saddexdaas xafiisyada waan sheegnay ee miisaska saaran ee muhiimka ah waxa kale oo miiska saaran xafiisyada localka Minnesota ahaan school boardka qaar ka mid ah miiska saaran maxaan ku dhahaa waxa kale oo miiska saaran xafiisyada sanadka gobolka iyo house-ka oo gobolka ah house-ka oo national asna miisku saaran yahay dadkii matali lahaa marka maadaama xafiisyada kala duwan waxaa kale oo miiska saaran secretary of state-ka qofka state-ka mas'uulka ah waxaa miiska saaran maxaan ku dhahaa attorney generalka waxaa miiska saaran state senate auditorka qofka ah marka all those offices oo jiro waa saameyn toos ah wax nagu yeelanaya maadaama ay saameyn nagu yeelanayaan waxaa loo baahan yahay marka inaan baraarugsanaano aan la soconno idaacadaha aan daawano issues-ka life-keena taabanaya sida uu kala taagan yihiin iyo mid kasta muxuu keebaa ku fircoon nolosheeda waxa taabanaya keebaan keergaranayn ama aan shaqo ku lahayn waxaas dhan waxa loo baahan yahay dadku inay la socdaan idaacadaha maalmaha soo socdo debate-ka nimanka tartamaya inay fiirsadaan kadibna ay arkaan iyo gabdhaha tartamayaba kadibna ay go'aan ka qaataan ay ugu shubaan codka qofka ay isleeyihiin dantiinu uu xiriir la leeyahay dan ay u codayaan
anigu uma imaan qofna inaan idhaahdo u coday hebel laakiin waxaan odhan lahaa qof kasta u codeeyo issueska uu isleeyahay noloshaada ay taabanaysaa doorashadu waxay dhacaysaa November afarteeda oo ah talaadada ugu horeyso bisha November sida caadiga ah general electionka wuxuu dhacaa talaado kasta waqtiga electionka lagu jiro oo bisha November talaado ugu horeyso sanad kasta doorasheed bil kasto November ama bisha November talaado ugu horeyso dhacaa electionka sanadkan wuxuu dhacayaa talaadada ugu soo horeysa bisha November 2014 waxay furmayaan maxaan ku dhahaa goobaha codeynta 8 subaxnimo waxayna furnaanayaan ilaa 8 fiidnimo waxaana si wanaaga state-keena Minnesota ahaan oo kale aan u helay fursad qaali ah inuu qofka codeyn karo ka hor intaan la gaarinba maalinkaas talaadada ah haddii aad ka baqayso zaxmad badan aad la kulanto oo dad badan ay leenka ay iman doonaan oo isleedahay waa kugu dhib waxaa ku haboon inaad early aad codeyso waana lagu ogolay waagi hore waxaa loo ogolaan jiray absentee hadda waxaa loo ogolay inuu qofka early xataa uu codeyn karo marka waa fursad qaali ah oo aan leeyahay qofka inuu hadda tago way fiican tahay haddii kalena maalinka electionka ah November 4 yeesan ku dhaafin codkaadu waa muhiim codku waa awood waxaynu nahay ummad jirta oo kamida nolosha mujtamaca wadankan inaynu qayb ka ahaano codkeena aynu muujino waa waajib in saaran qof kasta oo Soomaali oo Muslim oo nolosha wadankan qayb ka ah waxay kamid tahay qaybta nolol mujtamaceedka wadankeena waxaynu nahay dadku wax ka bedeli kara siyaasadda wadanka oo inaan la socono loo baahan yahay marka waxaan rabaa fadlan in qof kasta oo Soomaali ah ee codeyn kale oo muwaadin ah da'diisuna ay ka weyn tahay 18 sano state Minnesota ilaa 20 maalmood deganaa wax falani ah oo sharci ku xadgudub wadankan oo dambi hore u galay aysan falanigiisa ugu jirin oo aan wax falani aan ahayn qofku wuxuu awood u leeyahay inuu codeeyo waa muhiim haddii hore u codeyn jirtay oo address aad deganeed aad ka guurtay mar labaad inaad isdiiwaan geliso haddii kale kama codeyn kartid meesha aad ka soo guurtay ama meesha aad degan tahay kuma codeyn kartid adoo mar labaad isdiiwaan gelinin luckily state-keena waxaan fursad u haysanaa alxamdulillah inaad waxaan leenahay same day registration wax la dhaho qofka maalinkii isla goobta codeynta u yimid yaa wuxuu codsan karaa inuu weydiisto waraaqda isdiiwaan gelinta ama la yiraahdo voter registration card ayadoo af Soomaali ku qoran baa taala ayadoo Soomaali English ku qoran way jirtaa iyo luqado kale waxaan oran lahaa marka inuu qofka weydiiso oo isdiiwaan geliyo isla goobtaana uu ka codeeyo isla maalinka haddii ay dhacdo markaad adoo hore isku diiwaan geliyay laga waayay listaha magacaada waxa ayadana sidoo kale uu qof ama ID aadan haysan ku qoran markaad buuxinayso voter registration-ka ID khasab kuma tihid in lagu weydiiyo voter ID hadaad ID wadato cid ku weydiinaysa malaha hadaad wadan ma lagu weydiinayo markaad timaado goobta hadaa hore u diiwaan gashaneed waa diiwaan gashan tahay hadaadan diiwaan gashaneen waxa laga rabaa inaad ku dhameystirtay ID lambarkaada oo dhameystiran markaad buuxinayso lambarka voter registration-ka hadaadan haysanna afarta lambar oo soo security-da ugu dambayso ayaad ku qoraysaa haddii marka ay noqoto inaad isdiiwaan geliso dhahdo halkaan aan deganahay wax cadeyn aadan haysan aad degan tahay waxaa ku dhihi qof ku yaqaano uu goobta joogo wuxuu ku vote gareyn karaa uu oran karaa hebel ana aqaana oo wuxuu degan yahay halkan waa qof dariskayga ah aqoon waan u leeyahay because qofkaas ku vote gareey ama ku maxaan ku dhahaa witness gareey inaad adigu tahay deganay goobta aad sheegatay inaad degan tahay xilkii uu ka dhacayaa markina waad dhimanaysaa waraaqda codeynta sidii baad ku codeynaysaa marka waxaan oran lahaa fadlan qofka aan codeyn karin marka waa qofka aan citizen-ka ahayn fadlan waa dambi ama waa kugu dambi haddaadan citizen-ka wadanka aadan qaadan ma codeyn kartid haddaadan haysan waraaqda dhalashada wadankan aadan qaadanin dhalashada wadanka ma codeyn kartid mar labaad waxaan ugu celinayaa sanadkii hore incident-ya dhacay baa la yiri gabdhaha ayagoo u malaynaya inay saxsan yihiin codeeyay haddii aad hore u codeeyay ayagoon ahayn citizen khaladna weeyaan baa la yiri oo sharciyan lama ogolo balse waa dambi haddii aad hore aad ahayd early voter oo mar aad codeysay ha isdhihin talaadada afarta bishana codee oo mar labaad codee ha is oranin haddaad mar labaad codeyso waa kugu dambi mana samayn kartid kaasna ha laga digtoonaado sanadkii hore iyaduna way ka dhacday sharciga wadankana micnaheedu ma aqaan wax la yiraahdo ma jirto wadanka haddaad joogto sharcigiisu wuu ku qabanayaa ma aha inaad taqaanay inaadan aqoon marka waxaan oran lahaa fadlan qof kastoo dhageysanayo ha isku dayin ama ha is oran shaki uu ka gelin codkaada hore aad dhibatay ama shaqeyn waya ha soo wuu shaqeynaya mar labaad ina codeysaa waa kugu dambi goobta codeynta markaad timaado maxaad sameynaysaa marka
maalinka talaadada ah afarta galabnimo subaxii 8 subaxnimo ilaa 8 fiidnimo furan yahay markaad timaado talaadada afarteeda oo maalinka bisha November ah subaxii waxaad weydiisanaysaa haddii hore isku diiwaan gelisay magacaada meesha yaala badanaa last name ahaan baa ku yaalan meesha dad luqadaada ku hadla inay joogaan baa laga yaabaa haddaysan jooginna aadan luqada ku hadlin waa dalban kartaa waxaan filayaana inay noo joogaan dad badan oo election judges oo Soomaali ah qaar kamid ah aan inaga tababaradii iyo fursadihii aan u abuurnay kadibna city-ga maanta si official ay uga shaqeynayaan waxaa kaloo jira group badan oo ayana sidoo kale turjubaano ah oo sharciyan aad u leedahay xaq haddaad tahay muwaadin codeynaya inaan weydiisato dhahdo hal ii turjumo ma haysto qof luqadda ma aqaano waa haddaadan aqoon kadib markaa aad isdiiwaangelintii meesha goobtii miiska aad timaado waxaa lagu siinayaa waraaqdii tigidhka aad ku qaadan lahayd magacaada markii meesha laga helo miis kala tagaysa waxaa lagu siinayaa paaletkii aad ku codeyn lahayd oo ay ku qoran yihiin magacyo kala duwan iyo xafiisyo kala duwan ha is oran marka xafiiska kaliya u socotay ma aha hal xafiisyo badan baa ku qoran culays ha u arkin waa saac meeshii waa timi waa joogtaa ka faa'iidaysa xafiis kasta oo muhiim ah inaad u codeyso adoo u codeynayo qofkii aad u codeyn lahayd waxaa lagu ogolay kaliya hal qof xafiis kasta hal qof inaad u codeyso god yaro madow kolley waa idinka tusi doonaa shaashada iyo baaledka leeyahay godkaasaa rabaa inaad madoobayso qalinka adoo ku madoobeynaya meel cadna aadan ka tegin kadib markaad buuxiso waxaad ula tegaysaa mashiinka waad gelinaysaa afka markaa u gelinaysaa asaa qaadanaya markaasna wuxuu hoos ugu dhacayaa markiina waxaa lagu sheegaa inuu baaledkaada uu galay meesha haddii khalad dhaco uu isoo celinaya waana lagu sheegaa inuu isoo ceshay ku noqaa lagu leeyahay marka waxaan odhan lahaa walaalayaal mar labaad iyo mar saddexaad baan ku celinayaa codku waa muhiim waana awood qof kastoo Soomaali ha is oran qofna kama taqaanid yaad u codeysaa informationka la soco idaacadaha waxaan idin siinayaa informationka telefoonka xafiiskeena oo maalinkaas dadku u ah hotline ay soo wici karaan lana siin karo maxaan ku dhahay informationka ugu habboon ay u baahan yihiin waxaan kaloo maxaan ku dhahay aad idin siinaya website-ka oo ka daawanaysan shaashada sida macnaha www.somaliactionalliance.org oo shaashada ka daawanaysaan waa mar labaad www.somaliactionalliance.org waxaan leeyahay ani ahaan personally iyo organization ahaan institutionka aan matalo qof khaas ah u coday kuma dhahayo mana ku dhahayno group khaas ah u coday kuma oranayo mana ku dhahayno laakiin waxaan rabnaa codkaada inaad dhibato adoo xor u ah qofka aad u codeynayso adoo eegaya issueska ama arrimaha nolosheena taabanaya ama noloshaada taabanaya isleeda muhiim bay ku tahay ha noqoto waxbarashada ubadkaada ha noqoto waaxda socdaalka iyo immigrationka ha noqoto arrimaha xawaaladaha iyo dhibaatada ka haysta ummadda ha noqoto caafimaadka iyo affordable healthcare ha noqoto housingka adoo ku qiimeynaya siyaasiga tartamaya hadba waxa uu ku hadlayo kaalinta uu ka joogo ama meesha uu ka joogo waxa adiga noloshaada taabanaya adoo ku qiimeynaya siyaasiga codkaada dhiibo mar labaad waxaan leenahay get out to vote codkaadana waa muhiim muwaadin Mareykan baa tahay awood iyo siyaasadda Mareykanka qiimad ku leedahay sharafna waad ku leedahay waxaan leeyahay sharafteena qiimaheena kor aan u qaadno siyaasadda Mareykanka waa wax aad u sahlan ma aha wax la isku qabsado la isku dagaalo lagu marno wali ma ana arkin cid isku haysto qof saaxiibka ah hadduu siyaasi kale oo adiga ka aaminsan ama raacsaneed uu raacsan yahay ceeb ma aha khalad uu galayna ma aha adigana khalad aad ku gashay ma aha ka raacsantii inaad raacsanato isku ixtiraama labadiinaba qof kastana labada qof oo isqabee xaaska iyo ninkeeda ama ninkeeda naagtiisa yaaba laga yaabaa inay laba qof ama ay kala aaminsan yihiin ama laba fikir kala aaminsan yihiin fadlan hal isku xushmeeyo fikirada la kala aaminsan yahay si anagoo nadiif ah aan codkeena u dhiibano si nadiif oo taariikhda ay noo gashanay insha Allah ay u noqoto mid inoo socota yeesan dhicin qof kale inuu u dulmiyo ama ku dulmiyo sidii qofka aan jeclaa ugu codeyn waayay marka waxaan ku soo koobaya hadalkayga November 4 2014 waa maalinka codeynta waa maalin talaada ah 8 subaxnimo 8 fiidnimo furan yihiin goobaha codeynta wixii faahfaahina fadlan nala soo xiriir waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh